xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaanan hadal jeedinteyda u sii guda gelin anigoo ku hadlaya magaca golaha shacabka waxaan u dirayaa tacsiyo tiiraanyo leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadkii ku geeriyooday cudurka COVID-19 waxaan si gaar ah tacsiyo ugu diraynaa eheladii iyo qaraabadii xildhibaan aadan cali xasan aadan jamhuuriya waxaan dhammaantood Ilaahay uga baryaynaa jannadiisa firdowsa inuu ka waraabiyo mudane madaxweyne xilka guddoonka baarlamaanka xilliyada ay furmayaan kalfadhiyada waxaa ka mid ah in laga warbixiyo kalfadhigii la soo dhaafay kalfadhiga xilligaasi furmaya meesha uu ku socdo iyo howlaha horyaalla golaha inuu warbixin ka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu dhammaaday kalfadhigii lixaad waxaan xildhibaanada golaha shacabka u jeedinay in fasaxooda bil kaliya uu noqdo si howlaha muhiimka u ah doorashooyinka qaranka ee golaha horyaallo ay ka mid yihiin dhamaystirka afarta xeer ee sharciga doorashooyinka uu farayo sharciga casaabta iyo howlaha kale ee xiriirka la leh doorashada 2021 ay baarlamaanka ugu suurta gasho in waqtigooda lagu dhameeyo fikrad fiican lagama haysanin in dunida iyo gaar ahaan dalkeena uu saameyn doono cudurka COVID-19 oo aan horay loo arag uu saameeyey nolosha qof kasta ee ku nool dunida iyo gaar ahaan dalkeena arrintaani waxay hakisay habsami u socodka dhammaan howlihii dowladaha iyo adeegyada bulshada waxaana la hakiyey lana xakameeyey qiimo ka mid ah xuquuqdii iyo xorriyaadkii dastuuriga ahayd ee muwaatin kasta ee ku nool dunida uu lahaa furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka tobnaad allah mahadiisa waxaa guul weyn noo ah inaan awood u yeelanay inaan furno kalfadhiga baarlamaanka iyadoo ay dalka ka jiraan duruufo aad u adag ee uu sababay cudurka faafa ee coronaviruska mudane madaxweyne marka la eego xaaladda soo korortay ee faafidda COVID-19 waxay caqabad ku abuurtay howl maalmeedkii joogtada ahayd ee baarlamaanada caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida hay'ado ama ururo kale ayaa dad tiro badan isugu yimaadaan hal meel loogana baahan yahay inay gacan ka geystaan yareynta halista gudbinta COVID-19 iyadoo isla markaa loo ogolaanayo wada shaqaynta lagama maarmaanka ah ee ka dhaxaysa xubnahooda iyo shaqaalaha taageera dowladda iyo shacabka arrimaha doorashooyinka mudane madaxweyne ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka ee kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya runtii waa guul weyn hase ahaatee waxaa weli harsan arrimo saldhig ah oo ay tahay in sharciga uu qeexo labada guddoon ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay 1 March 2020 magacaabeen guddi wadajir ah oo ku meel gaar ah ee dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka oo ka kooban 17 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha labada gole ee baarlamaanka waajibaadka shaqo ee guddiga waxaa ka mid ah inay la tashadaan cid walba oo sharciga tayeyntiisa looga maarmin sida guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka dowlad goboleedyada dalka hay'adaha amniga xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan ururada bulshada rayidka qiibahooda kala duwan si ay u soo diyaariyaan xeerarka hoos ku xusan ee laga sugayo inay baarlamaanka hor keenaan xeerka deegaamaynta kuraasta baarlamaanka xeerka xaqiijinta qoondada haweenka xeerka doorashada xubnaha labada gole ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya xeerka xuquuqda matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir
intaa waxaa sii dheer guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marwo xaliima ismaaciil ayaa loo qorsheeyey inay hor timaado labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya 27-ka bisha juun si ay u soo bandhigto qorshayaasha iyo cayimaadda taariikhda doorashooyinka la qabanayo si waafaqsan qodobka 13aad faqradiisa 3aad ee sharciga doorashada. waxaan rajaynaynaa in dhammaan xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya soo dhoweyn iyo wada shaqayn buuxda siin doonaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. mudane madaxweyne, muddo xileedka golaha u harsan oo ay tahay muddo aad u kooban haddana ay indhahan uga hayaan shacabka soomaaliyeed si uu baarlamaanka federaalka soomaaliya u soo saaro go'aano dhaxalgala si waafaqsan qodobka 10aad ee qodobka 109 ee xarafka e iyo qodobka 109 xarafka ba. xukuumadda waxaan si waafaqsan qodobada aan kor ku soo sheegnay waxaan xukuumadda ka sugaynaa in si dhaqsaha u soo gudbiso xubnaha guddiga adeega garsoorka, xubnaha guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuurka oo muhiimad gaara u leh dhinaca doorashooyinka qaranka si baarlamaanka federaalka soomaaliya u ansixiyo, iyadoo aan ku kalsoonahay in baarlamaanka 10aad uu gudan doono waajibaadkiisa culus ee laga sugayo. geedi socodka dib u eegista dastuurka wuxuu runtii calaamad weyn u yahay dib u dhiska dowladnimadeena soomaaliyeed, uuna noqon doono guul weyn oo dalka gaaray, annagana na siin doono taariikh weyn. haddaba waxaan dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka codsanaynaa inaan si adag kalfadhigan uga wada shaqayno si aan himiladaasi uga gungaari lahayn. guddiga la socodka dastuurka wuxuu soo dhammaystiray qabiqoryaalka wax ka beddelka dastuurka ee dhammaan cutubiyada dastuurka ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya. qabiqoraalka wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa loo soo bandhigay laganana tashaday shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, iyadoo guddiyadu ay ka soo ururiyeen talooyin wax ku ool ah. guddiga la socodka ee dastuurka, guddiga madaxa bannaan ee dastuurka, waxaan rajaynaynaa inay soo dhammaystiraan la tashiga shacabka iyo dowlad goboleedyada. haddaba mudanayaal, waxaa golaha hor yaalla qaraar ku saabsan habraaca ansixinta dastuurka oo ay soo gudbiyeen guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. maadaama guddigu uu soo dhammaystiray howlihii dib u eegista ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la ansixiyo qaraarkaasi si loo bilaabo doodda ansixinta wax ka beddelka dastuurka. waxaan ammaan gaara u soo jeedinaynaa guddiga la socodka dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka. mudane madaxweyne, si loo yareeyo faafidda COVID-19 kalfadhigan 7aad wuxuu ka duwan yahay kuwii hore ee lagu qaban jiray dugsiga tababarka booliiska ee lagu martiqaadi jiray bulshada Muqdisho qeybaheeda kala duwan. maamul goboleedyada, beesha caalamka iyo afhayeenada dalalka jaarka ah. kalfadhiga 6aad ee aan soo dhaafnay waxa uu ahaa kalfadhii ugu shaqada badnaa. baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa la ansixiyey shuruuc badan oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka qaranka iyo shuruuc kale oo ay ka mid tahay shuruucdii deen cafinta. waxaana ka mid ah sharciga dhismaha hay'adda dadka naafada ah, heshiiska caalamiga ee naafada, sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa, wax ka beddelka sharciga dakhliga, warbixinta xisaab xirka 2017, hindis sharciyeedka dheelitirka siyaasiyiinta Soomaaliyeed, heshiiska midowda Afrika ee badbaadinta dadka ku barakacay gudaha Afrika, ku noqoshada miisaaniyadda 2019, heshiiska khuseeya ilaalinta hiddo-dhaqameedka iyo midka dabiiciga, heshiiska ilaalinta hiddo-dhaqameedka aan muuqan, hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga, hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda, miisaaniyadda 2020, hindis sharciyeedka petroolka, heshiiska ka mid noqoshada hay'adaha damaanadda maalgashiga tarafyada badan, wax ka beddelka sharciga furdooyinka, wax ka beddelka sharciga iibka qaranka, dib u eegista sharciga saxaafadda, hindis sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada,
hindis sharciyeedka istatistikada Soomaaliyeed, hindis sharciyeedka doorashooyinka, hindis sharciyeedka duulista rayidka ee hawada, hindis sharciyeedka tayadhowrka Soomaaliyeed. ugu dambeyntii waxaan u mahad gaar ah u jeedinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay diyaarinta xafladan furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka, gaar ahaan habdowriyaasha baarlamaanka, wasaaradda caafimaadka, taliyaha ciidanka booliska. mudane madaxweyne, xildhibaanada sharafta leh, ugu dambeyn waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si maamuusan ugu codsanaya inuu xilkiisa dastuuriga guto uu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. mudane madaxweyne, ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم